السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن intay habeen u tahayna habeen wanaagsan ayaa idin leeyahay dhammaantiina ummadda muslimiinta meel walba ay joogto. waxaa idin leeyahay ciid mubaarak. alxamdulilah, anaga ciid waxaan ku ciidnay farxad iyo isku imaasho. alxamdulilah rabbilcaalamiin. dadka aan helinna inay isku imaadaan ama masjida in kusoo dukanin, waxaan u rajeynaa insha allah ciidi kale inay kulmaan isku imaadaan insha allah biidnillaah. annaga wadankeena si maasha allah looga ciiday alxamdulilah rabbilcaalamiin. ilaahay mahadiisa waaye taas. meeshan waxaan ku fadhiyaa caafimaad alxamdulilah, nabad aan ku fadhiyaa. ilaahay waxaan ka baryayaa nabadeena inuu ilaahay noo siyaadiyo iyo caafimaadkeena insha allah. meeshaan aan ku qaxweysanayaa, subaxnimo ay ii tahay, marka soo dhawaada ila qaxweysta idin leeyahay. idinkana waxaa idin rajeynaa caafimaad insha allah meel walba oo joogtiin. waxaa idin wadaa farin yar. waxaa jirta horta caafimaadka iyo xanuunkaba horta ilaaha ahaayo. dad oo waxaa jira bukaan socod ah iyo dad iska caafimaad qaba. inkastoo maanta caafimaadkaba uu yaryahay, horta caafimaadka lagu sheegayo ma aha xanuunka. caafimaadka lagu sheegayo waa qalbiga iyo maskaxda. marba maskaxdaada hadday nadiif qalbigaaga uu nadiif yahay, caafimaadku uu dhiman ma jirto. dad waxaa jiro qof oo iska bukaan socod ah oo qalbiga ka nadiif ah oo raba inuu hore u socdo oo niyad jibinaay uu leeyahay waaba xanuunsan tahay maxaa qaban kartaa, ma iska fariisid. qof xanuunsanaa tahay maxaa qaban kartaa, waxaas qalad waaye. qofku walaalka hadduu xanuunsan yahay, bukaan socod uu yahay, horumarka uu jecel yahay, hore u socdo, ma aha inaad ku celisid. waa inaad dhahdaa maasha allah, hore u soco. xanuunka ilaaha keeno. hadduu ilaahay ku caafiyo oo qofka bukaan socod uu yahay, ma aha inuu fariisto. fariinta marka waxaan u wadaa dadka bukaan socodka ah waa xanuunsan, xanuunka ilaahay u keenay. hadduu rabbi kuu keeno waa xanuunku, waa inaad la saaxiibtaa. ilaaha kuu keena, ilaaha kaa qaadi karo. bini aadan kaama qaadi karo, dhakhtarna kaama qaadi karo. rabbigii ku siiyey, ku hadeeyey caafimaadka xanuunkaaga, waa inaa ku xamdisaa. ha dhegaysanin dadka noocaasa, kalsooni darada hayso. ha dhegaysanin. haddaa caafimaad qabtid iyo haddaa xanuunsan tahayba, rabbiyaa shuqul ku leh taas. xamdigana ilaaha iskale. inaa u xamdisiin waa allah subxaana watacaala caafimaad idin siiyey. qofkan bukaan socodka oo xanuunkiisa la socdo, ilaahay caafimaad uma waynin. wuuna ku xamdinaya, wuuna ku shukrinaya. adeedoo caafimaad ilaahay ku siiyey, ma aha qofka walaalkaa oo xanuunsan oo hore u socdo inaa hor istaagtid. aadhaadid qof xanuunsanaa tahay maxaa qaban kartaa. qofkaasoo kale qalbiga nadiifka ma aha. marka waxaa kuu fiican inaad qalbiga iska nadiifisid. waxaan la hadlayaa dhammaan bukaan socodka, ama sariir ha saarnaado ama hala socdo xanuunkiisa. waxaan kuu rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheer. haddaa xanuunsan tahayna xanuunka allah subxaana watacaala kuu keenay, waa inaad ku samirtaa oo horena u socotaa. wax alla waxaa qaban kartidna aad baroobaysaa. haddaa gurigaaga dhexdiisa wax ku samaysan lahayd, haddaa iridaada horteeda wax dhigan lahayd, haddii banaanka wax ku iibin lahayd, waxaan ku dhihi lahaa hore u soco. qalbigaaga nadiif ka dhigo, waa guulaysanaysaa insha allah. marna ha u istaagin waa xanuunsan tahay maxaa qaban kartaa, dhigtaadiyay ku dhicin marna. hadday ku dhacdayna ka safeyd.